laamaha ammaanka Somaliland ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo talada maamulka kiilka shanaad laga wareejiyay isla markaana si qarsoodi ah ku soo galay Somaliland qorshahooduna ahaa in ay ka sii baxaan Somaliland. wasiirka waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Ibrahim Aadan Mahad iyo wasiirka cadaaladda Cabdi Jaamac oo dhinaca xuduudda Wajaale kaga soo gudbay si dhuumasho ah ayaa waxa ilaa muddo 7 ah ay ku sugnaayeen gudaha magaalada Hargeysa. ilo xogogaal ah oo wehelay wargeyska Hubaal oo ka soo baxa magaalada Hargeysa waxay u xaqiijiyeen in labadan wasiir maalintii Salaasada ee ciid ahayd laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa iyaga oo rabay in ay ka sii dhoofaan una dhoofaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. xogaha uu helay wargeysku waxa intaasi ku darayaan in laamaha ammaanku madaarku ay weydiiyeen su'aalo la xidhiidha sharciga iyo aqoonsiga ay sitaan kadibna waxa ay sheegeen labadan wasiir in ay yihiin ganacsato xoolaha ka ganacsata. muddooyinkii u dambeeyay waxa gudaha Somaliland soo gaarayay dadka ka soo cararaya rabshadihii magaalada Jigjiga ka dhacay kuwaas oo qaarkood ay la soo baxsadeen hanti ay dowladda Somaliland markii dambe gacanta ku dhigtay.